kulan aboonid lahaantii madaawada lagu soo dhawaada channelkeena Shariif Show qodobada ugu weyn aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya qiimaha shidaalka caalamka oo si degdeg ah kor ugu kordhay 3% kadib markii ay burbureen wadahadaladii la filayay in Jimcaha ay yeeshaan Mareykanka iyo waliba Iran. talaabada waqtigan Iran ay qaadayso ayaa u muuqata in saameyn xoogan ay ku yeelan karto Mareykanka iyo waliba guud ahaan wadamada sida weyn loogu fogaan yahay in laga soo saaro shidaalka. Haddaba Soomaaliya saameyn intee la eg ayay ku yeelan kartaa iyadoo aan ognahay in qaybo badan oo kamid ah dalka Soomaaliya Turkiga si weyn markaas ugu hami qabo inuu ka soo saari karo shidaalka. Maxaa sababay in wadahadaladii Mareykanka iyo waliba Iran ay burburaan? Sidee ayayna u burburi karaan wadahadalada oo ay u saameeyeen suuqyada caalamka waqtigan la jooga oo walibana qayb ay ka tahay shidaalka? Maxay suuqyada ugu falceliyeen sidaan degdeg ah ama korarka 3% qiimaha shidaalka? Doorka Iran ay ku leedahay sahida shidaalka adduunka Soomaaliya saameyn ku yeelan karaa? Sidee ayay xiisadda tani u saameyn kartaa marinka Hormuz? Maxay qubaradu kaga digayaan haddii wadahadalo dambe ay fashilmaan qorshaha ku aadan Iran iyo waliba sidoo kale Mareykanka? Dalal noocee ah ayaana markaas si gaar ah loogu dareemayaa kororka saameynta qiimaha shidaalka? Qodobadaas waliba wuxuu nagu soo kordhay inuu ku faaqidi doonaa wararkeena caalamka iyo Soomaaliya. Markuu warayso waxaan ka dalbanayaa inaad nagu soo biirto kamid noqoto saaxiibeen sida joogtada channelkeena aad ugu la socoto wararka caalamka kooda ugu xiisaha badan iyo waliba kuwa ugu dambeeyay intuba. وهاجك سورة صاحبان قيمها شدال كعالم كأيا سد دق kor ugu kordhay ku dhawaad 3% kadib markii ay burbureen wadahadaladii la filayay in Jimcaha ay yeeshaan Mareykanka iyo Iran sida ay warisay wakaalada wararka Reuters. Warbaahintu waxay markaas sheegtay in suuqyada shidaalku ay si xasaasi ah markaas ugu falcelinayaan wadahadalada markaas la filayay in ay yareeyaan xiisada siyaasadeed iyo waliba tan amni kana markaas kalsoonaan ee bariga dhexe waqtigan ka muuqata gaar ahaan marinada muhiimka u ah shidaalka laga dhoofiyo sida gacanka Carabta iyo waliba sidoo kale marinka Hormuz ee loo yaqaano shidaalka oo wadaxaajoodka Mareykanka iyo waliba Iran kadib fashilka wadaxaajoodka Mareykanka iyo waliba Iran oo dib markaas u nooleynaya cabsi laga qabo in ay sii kordhaan cunaqabataynta la saari karo Iran ama markaas ay ku dhacdo iska horimaad military arintaasi oo keeni karta hoos u dhac oo waliba ku imaan kara wax soo saarka iyo waliba dhoofinta shidaalka ee gobolada iyadoo Soomaaliya inta badan Turkiga uu ku fogaan yahay inuu wax ka soo saari karo shidaalka ceelasha ugu badan ee shidaalkana laga helay sida ay markaas baahinayaan wakaaladaha wararkooda ugu afka dheer taasi oo laga baqdin qabo in qayb ay ka tahay wadamada sida xoogan u saameyn doona Soomaaliya. qabiiro markaas ku xildheer tamarta ayaana sheegay in kicinta qiimaha shidaalka ay sidoo kale markaas xariiray waa markaas hareereeyay walaacyo xoogan oo walibana ay qabaan maalgeliyaasha kuwaasi oo markaas ka baqaya in xaaladan ay si xumaato saameyn toos ahna ay ku yeelan karto sahida shidaalka caalamka. Iran ayaana kamid ah dalalka ugu waaweyn ee shidaalka markaas laga soo saaro inkastoo ay markaas saaran yihiin cunaqabatayn culus oo waqtigan talaabadeeda ay qaadi karaan dunida inteeda kale. sida ay warbaahinta Reuters ay sheegayso fursada shidaalka nooca Brent ayaana markaas kor u kacday 100% ku dhawaad saacado un gudahood wadahadalada shidaalka weyd ee markaas Mareykanka isla markaas muujinaysa saran u qaaday ama sare u kac ku yimi taasi oo muujinaysa sida suuqyada ay markaas ugu falcelinayaan burburka wadahadalada ee markaas korarka qiimaha shidaalka ama markaas in laga cabsi qabo in saameyn ay ku yeeshaan dhaqaalaha dalal badan oo ay ku jiraan shidaalka dibadda laga keeno gaar ahaan kuwa dalalka markaas koraya oo halka culayska markaas dheeraad ay ku saari karto sicirka waa markaas sicir barka caalamka waqtigan uu wajahayo xiisada Mareykanka iyo Iran oo muddo markaas dheer saameyn ku yeelatay suuqyada tamarta ayana waxa la aaminsan yahay in haddii ay xal diblomaasiyadeed la helin qiimaha shidaalku uu u sii muuqdo in uu xoog u sii kici doono ama qiimaha u muuqdo in talaabooyinka ay qaadayaan saameyn ay ku yeelan karaan. waad ku mahadsantahay ilaa dhamaadka haddaad ila soo gaartay waxaan ka dalbanayaa inaad ku soo biirto channelkeena Shariif Show. mahadsanidin.